madaxa caafimaadka degmada Gaalkacyo mudane Cabdikariin agaasimaha guud ee cusbitaalka Gaalkacyo mudane Maxamed Cabdi waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo soo dhaweyntii iyo maaragtay shaqada adag oo halkan ka haysaan bulshada reer Galmudug si gaar ah bulshada reer Gaalkacyo oo haysaan iyo dadka Soomaaliyeed oo meelo badan oo kala duwan ka yimid ummadda Soomaaliyeed ee aad u adeegaysaan waxay adeegiinaan ugu fadhiyaa wax weyn waxaan rabaa marka inaan qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirka ama gaabka jiray inaan arinta markaan saaka booqashadeena kadib aan aragnay waxa ugu muhiimsan waa fan gaab ama dhaqaalihii lagu bixin jiray tabarucaad lagu bixin jiray gaab ka jira laba qaybood oo hadda midna hadda xirantay midna hadda ay maalmo yar kadib xirmi doonto oo ah qaybtii karantiilka iyo qaybtii bukaan socodka OPD labadaas qaybood oo runtii muhiim weyn u ahaa habsami socodka shaqada cusbitaalka iyo sidoo kale qaybta referralka iyo qaybaha kale oo laftigoodu qaybtan ilmaha yaryarka oo ku dhasha da'dii ma ku dhasha bilihii ka yar iyadoo aan gaarin xilligii ay maartay dhalan lahaayeen dhasha oo Soomaalidu u yaqaanaan dhiciska meesha lagu kadinayo oo qalabkii inta badan Galmudug iyo Puntland meelo badan oo kamid ah uu ku tiirsan yahay isla xaruntan kaliya arintaasi waxay maartay shaqay ka shaqeynaysaa ama ay maartay tahay in laga howlgalo oo la isku dayo in maartay la balaariyo muhiimadeedana la siiyo waxaan rabaa in halkaan ugu soo jeediyo baaq hay'adaha caalamiga iyo dadka deeq bixiyaasha ee ka shaqeeya samafalka arrimaha caafimaadka la xiriira waxaan rabaa in ay raahdo cusbitaalka Gaalkacyo oo ka fargareeya meelo kamid ah dhammaan gobolada Soomaaliya inteeda badan iyo Soomaalida Itoobiya ama gobolka Soomaaliya Itoobiya dad badan ka yimaada wuxuu maanta la daara dhacaya arrin la xiriirta gaab ama fankii oo yaraaday waxaan leeyahay in la siiyo muhiimadda uu leeyahay dadkaas loo adeegayo maalinkii boqolaalka gaaraya maartay arrintaas in xoog la saaro waxaan rabaa inaan baaqaas aan dadka maartay tabarucaad bixiya ama deeq bixiyaasha ama arrimaha caafimaadka gargaarka ka bixiya oo ugu horeeyaan BHA iyo ECO oo cusbitaalkana gacan weyn ka geejin jiray fanka ayagoo soo marsiinaya hay'adda AMC inay arrintaasi si gaar ah dib ugu laabtaan hoos u dhaca ku yimid fankii la siin jiray cusbitaalka wuxuu saameyn ku yeelanayaa nolosha dadka u baahan in loo gargaaro cusbitaalkan sidoo agaasimuhu sheegay inta looga tashanayo dadka inuu u adeego vulnerable-ka ama IDP-yada ama dadka maartay waa ka duwan yahay adeega caafimaadka gobolka dhan ku tiirsan oo qofku ama ha ahaado qof haysta ama yuu ahaan halka meel uu ka heli karo maartay caafimaad ama uu ka heli karo service caafimaadka la xiriir halkan weeye marka deeq bixiyaasha waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo ugu horeeyaan dadka ka shaqeeya maartay isha campaigns-ka arrintaas in ilgaara lagu eego hay'adaha caalamiga iyo UN-kuna ay si gaar ah uga howlgalaan iyo wasaaradda caafimaadka oo hoggaan u ah barnaamijka caafimaadka state-ka sidoo kale dadka jaaliyadda iyo dadka waxa haysto ganacsatada ilaahay wax siiyay muxsiniinta waxaan ka codsanayaa rabaa inaan u soo jeediyo walaalayaalow culayska halkan ka jira ma ogdiin inaad timaadaan oo aad dad maartay soo aragtaan ayaa ficnaan lahayd adeega dadka loo qabanayo culayska jira iyo haddii ay go'aan adeegyadii dadkan heli jireen oo daawooyinkii iyo ahaa baaritaanadii haday go'aan culayska soo wajihi kara cusbitaalku wuxuu kaga baahan yahay garab annaga xoolihi haysana dadkeena xoolihi haysta wuxuu baahan yahay garab istaag dhanka dhismaha culays badan ka jira dhismo qadiimiya ku jira si wajkiisu maartay maalin boqol baa la dhisayo masaxna wuxuu u baahan yahay in dib loo casriyeeyo oo isku tashi la sameeyo oo qof walba Ilaahay wax siiyay uu ku darsado waa sadaqa jaariya dad masaakiin oo waxba heli karin lagu daweynaya qof xanuunsan baa lagu daweynaya marka jaaliyadda iyo dadka ka soo jeeda gobolkaana waxaan si gaar ah u leeyahay waa doorkiini waxa la idinkaga baahan yahay cusbitaalka dib u dhiskiisii iyo balaarintiisii in dib loo cusboonaysiyo lala jaan qaadsiyo heerka lagu jiro qalabka sidoo kale gaab xoog la ka jira iyo dhibaato xoog la ka jirta sidoo kale dadka waxyaalaha asaasiga ah oo ay kamid yihiin dhaqaatiir specialistiyaal ama dad maartay takhasus gooniya u leh inaad isku hawshaan inaad laftigiinu ka shaqeysaan wax bixinta hay'aduhu aaday sida hore maahan adduunka dhan baan waxa ka jira arrimahan gargaarka oo hoos u dhac ku yimid markaas crisis ka dilaacay maanta waxaan ku tashan karnaa waxa anaga jeebkeena ku jira culayskan ku soo aragnay oo ay wasaaradda caafimaadka iyo MDO iyo agaasimaha iyo ay la daara dhacayaan hay'adaha kale ka shaqeynayay culays ay kaligood ku filan yihiin maahan waa culays u baahan in la isgarab istaago
maalinta ay ku filan yihiin way soo mareen maanta waxay u baahan yihiin garab istaag qof kasta oo naga mid ah oo ama fariintay soo gaarto Soomaaliya danqanaya waxa u baahan yahay isbitaalkan dib u habeyn lagu sameeyo dib u dhis lagu sameeyo in laga saacido arrimaha maaragtay ii sheeg dhakhaatiirta iyo daawooyinka kulli laga saacido u baahan yahay arrintaas intaasaan inaan ku soo koobo insha Allah anaguna si formal ah ama waa u gaarsiin doonaa cid kasta oo qusayso haddii doonar iska ahaan lahayd haddii ahaan lahayd maaragtay ii sheeg dawladda qaybadeeda kala duwan wasaaradda caafimaadka heer federaal heer galmudug iyo dadka kale oo ka shaqeeya arrimaha la tacaalida ama emergency-ga runtii marka ugu dambeyn waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo Dr. Maxamed Cabdi oo 20 iyo dhowrkii sano isbitaalkan uu furnaa laf dhabar u ahaa laantiisana uu shaqeeyeen waxaan leeyahay ilaahay ajar ha ka siiyo wasaaradda caafimaadka sidoo kale door xoog leh runtii iyo dhex joogid iyo ka warqab iyo u qareemid ay la dhex joogtaa annagana insha Allah waxaan rajaynaynaa doorkeen inaanu ka qaadano oo aan sidii loo caawin lahaa dadkaas waxa way heer walba iskugu jira ayaan maanta gacan ka geysanaynaa